guddida madrasada Sheekh Nuur ee degmada magaalada ee gobolka Awdal ayaa maanta gaarsiiyay madrasada Sheekh Nuur ee deegaankaasi kuraas iyo agab kale oo ay ugu deeqeen qaar ka mid ah qurbajoogta deegaankaasi isla markaasina loogu soo hagaajiyay Kariin Cambe iyo Cabdikariin Daahir Fadan oo ka mid ah guddida madrasadaasi yagleeshay iyaga oo ka hadlaya isla markaasina u mahad celinaya qurbajoogtii deegaankaasi. waxa kale oo markaan doonayay halkan uga mahad naqno cidii ugu soo caawisay qalabkan in hor yaala kuraasta oo dhan 22 kursi oo halkii kursiba oo qaadayo 4 arday ku fadhiisanayaan oo maanta hadii la yiraahdo laga bilaabo ardayda aan rajaynayna inay kaga raystaan magaranaysaa sawirkii iyo qabowgii ilaahay ka jazaaisiyo walaalkeena nagu soo caawiyay wuxuu yiri aan la sheegin oo aan la magac dhabin خير كنا قرصيمه كون أكسين يسأو قريبا نانو وقريني إلى هو بركيو انت هذا نكاك جبحوك. الله الرحمن الرحيم إلى إبا محدث كله إنه عافمات قبنا إسكوكو كاني مدرسة الشيخ نور إسلاقابتي شيخ نور ما أنت وحي نوقف صانتي إنه نحرنا امتحانك سنداتك مدرسة الشيخ نور أرناتي عيارديدو مدو سوتشرين inta ka soo aylahadan iyo hawlaha deegaanka yaala mid maanta iyo maalmo dambe oo soo socda dhamaanaya maaha kolba meesha la taabtaaba oo meel u baahan in waqti badan iyo tamar badan la geliyo u baahan runtii agabkan in hor yaala maanta oo kala ah kuraasta inoo muuqata iyo solarkan oo runtii inaga soo kala gaadhay laba meelood haddii aan ku horeeyo solarkan horteena yaala oo ku deeqay madrasada Cabdishakuur oo runtii ka yimid qurbajoogna ah kana yimid Canada kuraasta laftooda iyo miisaska dhismada oo runtii hanti badanna ku baxday aadna loo adkeeyay maadaama ay la keenayo meel ka baxsan magaalo ahaan isagana waxaynu ku soo deeqay runtii qurbajoog oo inaan magaciisa sheegayn oo ii qariyay yiri khayrkan la baxay oo degan Mareykanka Dallas ba la baxay runtii mana magac dhabayno labadoodaba waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka waa bila rabadaane ha ugu daro ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro labadoodaba inta marka laga yimaado